ay maahino arkii oo degdeg ah waxa dareeray wal inay sheego doono ka dhagansadana sugu hayin waxa dareeray erinooma oodnayna warka ma aadan fahmini sugaha lagu fasirey weligay dagaal nin faceeya iiga ma adkaan soo roogso banaanka war miyaa lagu sabaxadeen wali adiga sabaxad iyo wax ka xunba ah adna soo raac war odagaan iyo sayid ku eed sheegana farihiina kala bax war odagana cirna ma joogo dhul lama joogo war intaanaan wada hadlinaad ba dagaal bilowdeenamayo sidaa waxaan kugu sheegnaa shibiska dhaminaad rabta yaa war u baahan magagiisa war dhaay ninkaan aan dhageysana hadal buu noo waday warnimay horta xaaladda geedkaanu booliska maarmi mayse bal maanta aan idiin warramo boolisaa tiriya amisoonna ma hakeen minaad wax iga qaadi karto qanda muug xume waxaa la yidhi waxa shilinka soomaaliga iyo doolarka la haysta ama siduu taraan boqorradii carabta yeelaayo lax dab taagan bay naga dhigeen dunida qaarkeede mar haddii intaan buuqsanayna la ka faa'iidey oo badweynta xoolihii dhexyii la iska guranayo maxaan sheegayaa waa inaan camanka buuraaye war walaal sheegda muwaay korto looma dhamashileedii kii filim haye xaad ka dheefteen waa kaas camanka buura ma anu kowna caayi karaa waxaan filka daran lahu war isdaji horaa loo yidhi gafuur cawad ninkiisa guba warnimayow si ikhyaarnimaha aan u sheekaysanno waxaan dhegaystay waraysi madaxweyne xasan shiikh lala yeeshay waxaa iiga muuqatay bisayl siyaasadeed oo rasmi ah oday nabadoona oo dimuqraadiyadda dadka macallin ugu noqonayuu ila eka war oday wartiis gurti oday ma eh war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi muddadii aan kursiga ka maqnaa wax la qabtana waa jiraan wax hoos u dhacayna waa jiraan wuxuu yidhi xaaladda amni kama soo rayn ee waa sii liidad laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga horukaca ka muuqda marka dawladdu waxna waa qabatay waxna waa ka dhiman yihiin xasan sheekh hawsha oo qabyada uga tegay ma la dhammaystiray war xasan sheekh waxa uu yidhi dawladdu waa waalid maamul goboleedyaduna waa carruurtii waalidkaa laga rabaa inay carruurta isku wadaan war dogonnimada lan ku weyn laada law dheegasanaysan onag baare ee waluwadu korma onag aase ee eratiisna saarade aryaa xasan sheekh aniga dhegaysadee wuxuu yidhi turkigu amaal weynuu noo galay sacuudiguna mugay wax kula rabaan waa gacan furan yihiin lamadaba in laysku wada waaye oon midna la xigsanoo yidhi warnimayo anuu madaxweyne xasan warkiisa waxaan u gartay xeegana ha la xagto ilkana ha nabad galeen xeero laga xagaahoo ku yaalla aryaa war xasan farmaajo ka dambeeyey madaxweyne farmaajo wuxuu ka qayb galay shirkii golaha wasiirada maantana dadweynuhu daawanaya ayaa shirkaa lagu wada hadlay waryeedo aqalnaaska odaa ogaynay tarbuunka lagasheekoda ay geeka war tarabuun shirka laguma qabanine life baa lagu daawanayay yaa mugna ma la leefaa mugna ma la xagaha beriga warka xaad ka wadiin warka hanaga dhex gelinina dhegaysta madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi cadowga aan la dagaalamaynaa dad la yaqaan ma aha mar waxaan la dagaalamaynaa uu yidhi war waa degdegtaanana dhegaysta waa nuuc gabaldaya ah oo bulshada isu ekeeyo hadba meeshay joogaan isu ekeynayaan buu yidhi maxamed xayir maareeye waa nin aad u wanaagsan oo Soomaaliland ah shirkii wasiiradiinana maanta wuxuu ka yidhi war Soomaaliland miyaa ilowday lamaba soo hadal qaadine adigu warka khayr yiri ma ilowday waad mahadsan tahay mudana wasiir maareeye waxaanse kuu sheegayaa in hawsha wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay tahay mid gooni ah oo dadaalkeedu uu socdo shakhsi ahaan haddii aad u rabtid waan kula wadaagi doonaa now jawaaban guulaystaba hadduu khayr maanta ii jawaabay war maanta shirkii wasiirada cawad baa soo istaagay wuxuuna yidhi wixii aan qabannay waxaad ka arki kartiin xafladdan quruxda badan kadibna ra'iisul wasaare khayre waxa uu ugu jawaabay cawad waa mahadsan tahay iska fariiso war cawad waa nin hawlkara sow ma aha ninkii shirkii qaramada midoobay inta looga kala tegey kuraastii oo faaruq u qudbeeyey oo weliba kuraastii ku qanceen warnimayow shirkii maanta ee golaha wasiirada kalamaan buu ahaa minay nugu daysadeen kalamaantaanyaan intaa la geeyaha horta yay ruqsad uga haystaan warnimayow meesha waxaa la keenay 4 tub oo tubtiiba ay leedahay 20 tub war waxaanaad kala tubtubaynaysa ma ahane qadiija waxayna tiri tubtuu qarankeenu maray khayr baa laga filanaya war khayrra wuxuuna yidhi tubta siyaasadda loo dhan yahay waa in aan dhaqan gelinaa aryaadaha ayaantan waxaa laysku habaaraa wareegtadaada cadaala ha akhriyo wareegtadii u dambaysay ou akhriyaanna idiin sheega wasiir ku-xigeenkii ganacsiga shaqadaa laga joojiyaa la yidhi mugga in musuq iyo maasuq lagu heestana waa u filaa anugu ilaahu wargatida ee adeela ay agriinay war wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda ee cadaala waraaqdiisa akhriya xaguu ku dambeeyey areshib naga dhinin cadaala akhriya waa u
dhammaatay war cadaalaha laftiisa ayaa akhrin doona waraaqdiisa wartaasindiga mar hore ka hadalay jawaabtii oo dhagansaynayow qataatilka qaatiloonenka hee yeereen haddiis wargadada akriyay adaala tiidisna ma akriyi doonee liibaan cabdaali akriyi doona warjayta inrooge aryadaha waxaa idinku dhacay in roogna inkirmaad hallawda miya war maya waxa weeyaan afkii baa juuqda gabay wardakada kuntaanar qamrigaa lagu qabtaa layidhi meeqa qabriyaa ka qodneedaa la yidhi qabrigaaga qora lama saarayna dhegayso aniga qoray haba i kor saarin war qoolada qamrigan cabto loo keena yaa waaye anigu waxaan isleeyahay xalanay degan yihiin aryaadhaha qamraxaad ka sheegaysiin kanada xashiishkaa la fasaxayaa la yidhi abbow dadka dhan wada muudku waaye miya mawd axaa mawd xashiishka ogya malaka ku qoor dhabe war xashiishka maxay iskaga xaali waayeen ma mafiiqay waayeen warnimayow ciidamada amisom gedo iyo shabeellaha dhexe dad shacaba masaakiin ah ayay ku laayeen dadkanaad sheegaysa xagga u fadhfadhiyeen war ganacsatadii suuga bakaaro ma ereena wadooyinkii una dhisaani iyoonay shaqadii una haynay barroojin ya eren taa loo roojihaahe warwarkii ingadhaha gallo aqooni hoostana laka furday hoolkalananii hoos wada eren war reer bakaaruhu amni bay kacbo jireene yaa waddooyin dhisa yidhaahday warnimayo horta anigu waa yaabayo wasaaradda amnigu xaggay degan tahay war aniga waa yaabanahaye guddiga amniga qaranka xaggay degan yihiin horta anigu waa yaabee abnigaanya yaa u xil saara war abla abni latiin wali shiid ee waddada lisafi moo shiidina may war guddigii doorashooyinka koonfur galbeed aawayniyo war guddigii wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aaway yaa kuwaas la warrami mayno ma nala ku dirqiha war midnimada waa loo baahan yahay ku yirmi hadii habad midnimo uma baahni naga taga nala midoobida naga taga min micir jururuqow ha ku dileen